السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت على وناكسن halkan naga daawanaysaa waa kanaalka Caboline of Technology ama Caboline. Maanta waxaan bilaabeynaa barashadeennii basic computer. Insha Allah waxaan rajeyn doonaa inaan si fiican fahmi doontiin casharada practice-kana la sameeyo si fiican lagu celiyo casharada waayo hal mar aad daawatay casharka laga yaabo inaad fahmi weyso marka saddexaad iyo mar labaad iyo mar afraad lagu celiyo. Marka buuggan waa buuggii koowaad ee barashada computerka. Marka introduction about computer yani buug koowaad window waayo buugga lixaad ilaa buugga koowaad saas ugu diinaa. Marka buug koowaad wuxuu ka hadlaa introduction hordhaca about ku saabsan computerka hadlaa. What is computer? Computer maxaa la dhahaa marka? Computer wuxuu ku leeyahay waxaa la dhahaa an electronic device waa aalad electronic ah waa aalad electronic to process oo lagu habeeyo data xogta aan converting ayuu u bedelaysa data xogta xiriirka into information xog bisil that is useful to people dadka u ah mid waxtar dadka u ah. How many parts mise qayb ayaa data computer consist of kooban yahay? Computer consist of wuxuu kooban yahay four main parts afar qaybood which are kuwaas oo kala ah hardware, software, user, data. Okay, afarta qaybood ay computer kooban yahay mid walba qeexi doona maxaa la dhahaa. Definition qeexitaanka of hardware ee hardware-ka hardware-ku what is hardware iyo definition of hardware is mid. Hardware-ku is a physical device of computer waa maqaarka computerka ama waa jirka computerka waa muuqaalka computerka which taasoo kan si la arki karo and touch la taaban karo. Examples tusaalooyin of hardware ku saabsan tusaalooyin kamid hardware-kan oo computer kamid ah waxa waaye keyboard kamid ah sababtoo keyboard-ka waa la taaban karaa. Mouse kamid ah monitor kamid ah mouse waa mouse-kii la isticmaalo waaye monitor-na waa shaashad projector-na waa midkan lagu soo jeediyo oo dhalada camal oo inta derbi waraaqada lagu dhijiyo ama boorka cad kaas ayaa waxaa la projector lahaa. Printer daabacad kuwaas wax la taaban karo waaye. Definition qeexitaanka dana of software waxaa la set of programs waa urur programyo ah telling kuwaas kuu sheegay computerka how to process data si xogta ugu habeyn lahayd. Okay, qeexitaan labaad software needs to be installed in lagu soo install gareeyo ama lagu soo dejiyo computerka useful usually caadiyan from optical device aalado yani optical sida CD-ga iyo DVD-ga SD yani canjalada taasoo kale or flash in looga soo install gareeyo. Marka install soo dhayso hadorto software waxa kugu jiri karaa flash kugu jiri karaa ama SD kugu jiri karaa ama DVD kugu jiri karaa kadib waa ku install gareey kartaa. Okay, types noocyasha of software-ka noocyasha waxa waaye software can be divided waxa loo qeybi karaa into part laba qaybood waxaa kale system software iyo application software. System software maxaa la marka system software waxaa la second waa nooc of software kamid ah which kaasoo is important for the computerka aad ugu muhiimsan to be installed in lagu soo install gareeyo for the sake for use si aad u isticmaasho si aad u isticmaasho waa inaad ku soo install gareysaa. Waa system software kuwaas ayaa kamid ah maxaa yeelay computerka ma isticmaali kartid system software tusaale ahaan sida window laan computer ma shaqeyn karo taasoo kale waa وكان without system software the personal computerka qofka isticmaalaya personal ku taala computerka shakhsi uu leeyahay oo ama yarka cannot be work ma shaqeynayo. Example tusaalooyin kamid ah system software waxaa kamid ah window kamid ah hadda sheegay window laan computerka ma shaqeynayo waa buugkooda aan baranayna Linux waa mid kamid ah version kamid ah waa kuwa system software-ka. Unix waa mid kamid ah iyo Mac OS oo Mac laga soo gaabiyo Macintosh OS na operating system laga soo gaabiyo. Application software maxaa la waa
system software waxaa loo qeybiya laba system software iyo application software. waa kasoo baxnay system software, hadda waxaan usoo gelaynaa application software. application software is a program or program that kaasoo si loo isticmaalo to complete si loo dhamaystiro tasks howlaha. waxyar insha allah waxaa umaleynaya aad ka maqlisiin, marka insha allah waa xilli insha allah saa subaxa dhow. okay xilli waxa duubay 10 saac waa umaleynaya 10 saac waa saacad. okay examples application maxaa la so application software maxaa la is a program that kaasoo si loo isticmaalo to complete tasks si howlaha lagu dhamaystiro ama lagu qabto. okay example for application software ku saabsan application software ku saabsan aye word kamid word waa abkan wax ku isticmaaleen waxa la Microsoft Word ayaa la shirkadda Microsoft Office soo saartay. Excel kamid waa book saddexda bara doonay, Access kamid waa book afraad, PowerPoint waa book shanaad, Publisher asna waa book laakiin sida badan lama qaato, yani muhiimad weyn ma leh softwarekiisu. haye tables asna noocyasha of application software ka noocyasha asna desktop application desktop ka shaashada yani iskale. web application waa application ku shaqeeya internet ku shaqeeya waa web application waxa way internet ku shaqeeya internet application ku shaqeeya internetka. iyo mobile application sida mobile app iyo mobile application mobilada application yani ku shaqeeya. haye mid walba tusaale example ku saabsan of desktop application waxa kamid ah Office package ayaa kamid ah, Visual Studio kamid ah, SQL Server kamid ah, Oracle kamid ah, multimedia software kamid ah. yani desktopki saaran yihiin de waa kuwa soo install gareyna desktop kuwa saaran desktop ka saaran waa. hadda example ku saabsan of web application da maqasho waa application ku shaqeynaya internet waa Facebook kamid ah, Twitter kamid ah, YouTube kamid ah, Google kamid ah, Gmail kamid ah, Yahoo kamid ah, Gmail hor loo isticmaali jiray waaye, Hotmail kamid ah sana. example tusaalooyin of mobile application ku saabsan Fiber kamid ah, WhatsApp kamid ah, Tango kamid ah, Nimbus kamid ah, Imo kamid ah, Message CB waxaas waa kala fahmi kartaa mobilada application ku shaqeeya mobilada iyo application ku shaqeeya internetka. okay halkaas ayaan ku joojinaa casharka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.